السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم walaalahayga Soomaaliyeed meel walbo joogtaan. Salaamu Allaahi calaykum. waa walaalkiin Maxamed Sudays. Bacda salaam, weligii ma ahayn nin jawaabo ka bixiya hadal xumada iyo ilbaxnimo xumada social mediaha taagan, dadka commentiga ku raadiya waxyaabaha qaldan iyo viewga ku raadiya. laakiin middan waxaan u suubiye exception. sababtu waxay tahay dadka aan hadda jawaabta u bixinayo waa dadan ku qiyaasaya inay yihiin dad professional ah. Cali Xaraare ninka la yiraahdo wuxuu kasoo shaqeeyey BBC-da, wuxuu kaloo usoo shaqeeyey Voice of America. marka saa awgeed maadaama uu yahay nin professional ah, I understand waaguu shaqaynayay producer oo lahaa wax usoo qora u dhiiba, laakiin hadda waa nin madax bannaan oo suubsaday barnaamij asaga u gooniyo la yiraahdo Somali American TV Minneapolis. saa awgeed maalin dhaweyd wuxuu soo tabinayay program uu ugu yeeray anshax xumada taraagleyda Soomaalida ah ee waddankan Maraykanka. dhowr qodobaa marka ka qoray. waxaa ka horreysay isagana waxaa ka horreysay gabar la yiraahdo Falastiin Imaan oo u shaqeysa Voice of America. sidaa awgeed barnaamij hadda ka hor ay ka diyaarisay Soomaalida, taraagleyda Soomaalida ah, ayay waxay ku tilmaantay wadista taraagga iyo lahaanshihiisaba ma aha mid u baahan aqoon badan, shahaado iyo waaya aragnimo toona. Falastiin iyo walaashay horta waa marka koowaadoo waxaan rabaa wax yar inaan kuu sheego. wax walba oo professional ah oo lagu shaqeeyo aqoonay u baahan tahay. qofku waa inuu soo barto. accountant qof ma noqdo ilaa uu xisaabta soo barto. qofka macallin ma noqdo ilaa uu qofka wax soo barto. qofka engineer ma noqdo ilaa uu qofka uu soo barto. mechanic qofka ma noqdo ilaa uu soo barto. wariye qofku ma noqdo ilaa waxa uu soo barto. so macnaheedu waxa waaye qofkan truck driverka ah, truck driver waa professional waaye, waa skill waaye, waa qofka inuu soo barto waaye. it takes 2 bilood oo iskuul loo galo, 6 bilood oo training loo galo, sanad iyo wixii ka badan qofka uu rugki soo noqdo uu la soo dhacdhaco, 2 sano markuu gaaro waa professional qofkaas. marka macnaheedu waxa waaye qofka taraaglaha ah ee baawur inta wata loo dhiibo 80,000 pound uu saaran yahay, ee east coast iyo west coast kala aadaya, macnaheedu waxa waaye qofkaas waa qof professional ah waaye. marka aqoonay u baahan tahay, waayo aragnimo u baahan tahay, dadnimo u baahan tahay, kartiya u baahan tahay. It's not an easy job maaha. marka gabadha walaashay intaasan kaga baxaya. ninka la yiraahdo saaxiibkay Cali Xaraare wuxuu yiri oo uu ka koobinayay ninka la yiraahdo Badri Muuse. wuxuu yiri waxaa u badan dadka cusub. waxaa kaloo u badan uu yiri dadkan iskuul soo marin. waxaa kaloo u badan uu yiri dadaan luuqad aqoon. waxaa kaloo u badan uu yiri dadka baadiyaha ka yimaado oo badawiinta ah. 4taas qodobba wuxuu ku tilmaamay dee waa si yaro ma u malaysin inuu dadka ku yara bahdilayo. Cali Xaraare waa arrintaas ma garanayo. weli waxaa ku tilmaantay 80% wax ma qoraan oo dad wax akhriyey ma aha, wax soo bartay ma ahan uu yiri, dad iskuul soo maray ma aha, dad luuqad yaqaana ma ahan uu yiri, waana dad cusub uu yiri. niyo arrintaas wax baseless ah waaye, wax ka jirana ma laha. annaga dadka cusubana la ku tiriyaa 10 sanana waddanka wadaa. marka arrintaas ma garanayo dee sourceskaga meesha aad ka soo heshay. dan kale waxaad ku sheegtay shilalka ugu badan ee Maraykanka ka dhaca taraagleyda Soomaalida ugu badan. cali oo arrintaas aad iyo aad ugu khaldantay. ugu yaraan shilalka ka dhaca waa 5,000 ilaa 10,000 sanadkii. truck crasheska waxaa ka helaysaa website-ka oo transportationka. truck crasheska waa 5,000 to 10,000 waxa ka dhaca. Soomaalida darawaliinta ahna waa intoo kale, waa between 5,000 to 10,000 waay. macnaheedu waxa waaye shilalka dhacaya haddii Soomaali u bateen oo fatality-ga ah, macnaheedu waxa waaye Soomaalidaas 10,000 lacag hadday yihiin 2 sanayba ku dhammaan lahaayeenba.
waa basic mathematical. hadday u bateen macnaheedu waxa waaye haddii 5,000 ay dhacday 2,500 ka badan oo Soomaali noqoto 3,000 ay noqoto oo sanadkii dambana ay galaan wax jaba iyo wax jiisay noqdeen iyo wax dhintay soo ma arrintaas niyo base ma laha tara annagaa wadada saaran annagaa kaa naqaano shilal ka dhaca annagaa kaa naqaano tirakoob sax ayaanan lahaanin laakiin dad iska warqabaanayo waxaas iyo wax u dhowna ma aha marka arrintaas niyo base ma laha wax kaloo ku tilmaantay Soomaalida dad aad u akhlaaq daran dad macnaha aad u nadaafad xun musqulaha ay galaan waxaa tiri kaamira qabato waxaan lasoo helaa tiri kaamirooyin dad Soomaali ah oo musqulaha biyo ku daadiya oo si qaldan u isticmaala caliyow weli maanan arag dunida meelo badana ka soo maray Yurub Asia Africa weli maanan arag musqul kaamira ku dhex jirto see macnaha meel privacy ah oo dadka yani ay privacygoodii ay u isticmaalayaan in kaamira la geliyo dadka ku dhageysanayaan dad waaweyn waa caruur maaha mugta so qof weyn u hadal caliyow arrintaasna base ma laha mid kalan kuu sheegaya waxaa tiri biyay ku daadiyaan macnaha musqusha markay galaan caagaday qaataan oo biyo ku daadiyaan cali qofku markuu caag wato macnaheedu waxa wuu isdaaxirinayaa istiji uu wataa istijadaas waa dahaaro waa cleansing waa qofku purification isku suubinayo annagaa kaa og gaalada intay line galaan meelaha musqulihii kale yani saxarad dulsha ay kaga saaran tahay qaarkood korka waa lagu kaleetiyaa wasaqdii kaadida kor ay saaran tahay ninka muslimka meesha u gala cali wuu tirtiraa istijadana dhulka kuma daadatee gudahay ku daadataa markuu kasoo kacana wuu wipe gareeyaa so you tell me inta naloo yimaado dhabarka nalka taabtaa lalahaa thank you very much we appreciate it imagine nin musqulihii kale saxaare iyo kaadi iyo dusha lagaga kaadiyey adigoo muslimna meesha kasoo baxin inuu arko dhalo aa u malaynaysa meel la dhaqay ilaa qof meel kaadi lehna kuma fariisanayo ninka muslimka bahal saxare lehna kuma fariisanayo hadduu isticmaalayo asaa iska kilin garaynayo kadib markuu kasoo baxayana waraaq u soo marinayo marka meesha ah ka keentay dadku biyaha dhulka ku daadiyaan ma garanayo caliyow arrintaas way kaa hoos baxday niyo marka intaa ah ku tilmaantay dadka akhlaaq xumada iyo anshax xumada iyo wax ka jira malaha ma jiraan dad macnaha waxaa la dhahaa every community has a black sheep qof walba qowmiyad kasta nooc walba industry kasta meel kasta dad xunxun dad way ku jiri karaan laakiin Soomaalida taraagleyda ah waddankan joogo waa dadka ugu hard workersan waa dadka ugu daacadsan waa dadka macnaha yani ugu akhlaaqda badan waa dadka ugu anfac badan cali adna waa ogtahay anna waa ogahay masaajidda marka gacanta la taaganayo dadka ugu jeebka buuran oo sadaqada ugu fiican oo lagu xisaabtamo waxa waaye masaajidada wax ka dhisay waa taraagley Soomaaliya marka wax loo qabanayo dadkooda ay wax u dirsanayaan dadka ugu jeebka buuran oo dadkooda nooleeya waa taraagley marka gabdha la guursanayo dadka gabdhaha si fiican u quruxsado guryaha fiican dejiyo waa taraagley qoysaska baabuurta fiican wato qurquruxda badan oo SUV-ga waa taraagley cali ninka darawalka ah ee aan experience-ga lahayn ee yani sanad iyo maxaqa $1,000 ugu yar wiigi waxa uu ku shaqeeyo ninka experience-ga leh 2 sano iyo wixii ka badanna 1,500 ilaa 2,000 wuxuu qaataa wiigi imagine marka ninka owner operator-ka ah they have a good life mabaxaji waa dadka ugu sharafta badan waaye dadkooda noolaysta waaye dadkaas camal intii la dhiiro gelin lahaa oo sumcaddooda ilaalin lahayd mideeda kale wax allaala waxaa cuntid wax allaala waxaa cabtid wax allaala waxa gurigaaga yaallo waxaa xiran tahay waxa keeno oo soo transport gareeya waa taraagley you should appreciate it babaxaji maa dadka inaa haysidoo af lagaadiisid waa laga fiican yahay babaxaji waddankan meelaha annaga aan tagno meelaha qaarkood markii waddanka uu lockdownka ahaa caliyo lockdownka markuu ahaa dadkii shaqaynayo naftooda halista gelinayo waa taraagley meelaha qaarkood markaan tagno raashinka iyo cabitaanka free nala siinayo why they appreciate it soo gaal ah weliba waxaa arkaysaa nin Soomaali ah oo load ku qaadaya $5,000 ayaa meesha markuu tago gascado empty ah
gasacadihii emptiga waxba kuma qorna laakiin meesha loo wado wuxuu ku fiirinayaa bahalkii qamriga noqonaya wuxuu leeyahay bas that's it I'm not taking why because meesha loo wada qamri waa who does that dad honest ah oo lilaahi ah oo hard worker oo ilaahooda ka cabsanayo xalaal quudataa oo dhahaya gasacan emptiga waxaa lagu shubi doonaa waa qamri lacagtan wuxuu uga cararayaa oo weliba maalinkaas ay ka dhammaatay oo uga cararayaa waa ilaahay dartiisu waay culumaa ku jirto caliyow oo kitaabada ka akhrisa marka shaqadan yani haddii aad u malaysa inay tahay shaqo oo iska fudud oo qof shaqooyinka kale kasoo shaqayn waaye oo dunida kale macnaha waxba ka qabsan waaye oo loosera inuu shaqadan soo galo caliyow way ka duwan tahay shaqadan waa yani waxa loo yaqaanaa waa hard labor waaye waxa weeyaan shaqooyinka ugu adag ay ka mid tahay oo heavy duty-ga ah ay ka mid tahay macnaha wayba tahay waa heavy duty waa ninka waqtiyada ugu kulul wada waqtiyada ugu qabowga badan wada waqtiyada dabeelaha dhaca wada roobabka waaweyn macnaha ku wada waxaas wada waqtiyada dunida ay shutdownka ka socoto wadada marayo they take risk waxaa ku jiro time management waxaa ku jiro stress management waxaa ku jiro maxaa la yidhahdaa ii sheeg waa time management waa stress management gaariga laftigiisa wuxuu kaaga baahan yahay markuu dalcadaha ka degayo ama uu dalcadaha fuulayo ama bridgyada laga baxayo ama meelahaas mataqaanaa New York iyo New Jersey iyo Philadelphia iyo maxaa la yidhahdaa ii sheeg California meelaha ugu biisiga badan oo ugu baabuurta badan oo baabuurta saas ku dhex yaacayso waxay u baahan tahay xirfad iyo skill ay u baahan tahay saan markii horeba ku bilaabay qofku waa kow in uu soo barta waayaba bahalkan 2 bilood waa iskuul adoo waxaa tiri 14 days oo shortkaday qaatan waxaas ma jiraan babaxaaji aniga waddankan markaan imaanayay horaan usoo shaqeeyey oo nin waxa ah darawal ah oo buuxa East Africa Central Africa South African kasoo shaqeeyey meelaha u badnaa waxaa ka mid ahaa South Africa Namibia Botswana Lesotho Swaziland maxaa la yidhahdaa ii sheeg Zimbabwe Mozambique aan ka shaqeynayay at the same time anoo saa usoo shaqeeyay markaa inta imaaday iskuulaa aada because waddankan sharci iyo nidaam uu leeyahay waa sharcigii iyo nidaamkii inaad soo baratid waaye ruleskii iyo regulationkii iyo waddankan nidaamkii kala dambaysiis inaad soo baratid waaye markaan soo qaatay saacadihii wixii laga baahnaa iskuulkii theoryga aan soo baray waxyaabihii experiencegii kalama marin because dad yaqaanaaba waddanka joogay horaan shaqa ka bilaabo marka caliyow shaqadan dee qof kasta ma qabto nin karti laha qaban karo nin dadnimo laha qaban karo nin macnaha iska adag oo mataqaanaa ii sheegeen hard worker ha qaban karo nin very hard work qof kasta ma qaban karo it's a heavy duty waa marka shaqadii haddaa ka dhigtid wax noocaan oo kale xataa gabdhihii waxay noqonayaan aan appreciate laakiin hadda gabdhaheenniyaa na fahansan oo markaan guryaha nimaano na dareemayo si fiican noola dhaqmo because how heavy duty it is waa shaqada keliya ku ogolaanaysa saa rabtid inaad u shaqaysatid babaxaaji 4 maalmoodaan shaqeeyaa 3 maalmoodna gurigeygan joogaa jimco sabti iyo axad yani taalmi yaa waa shaqada aad ka heli kartid meeshaas oo ku ogolaanaysa saas inaad samaysid every year ninka darawalka ah ama ninka owner operatorka ah xajkana wuu aadi karaa holidayna wuu aadi karaa dadka masterka ah oo laboratorist ha noqoto accountant ha noqoto whatever other jobs waxaa ka lacag badan ninka owner operatorka waxay isku lacag yihiin ninka dhakhtarka oo businesskiisa asaga iska leh so yes shaqadan qof business minded ah entrepreneurshipka wax ka garanayo oo rabo inuu waqti asaga naftiisana u helo reerkiisana u helo yani ka shaqaysto ninkii wax fahmaya marka dadka yani ha gelin ha ku xadgudbin dadnimadooda been ha ka sheegin way jiraan yes dad yani balwad lahaa jiro dad akhlaaq daranaa jiro dad meelaha fuel islandka meelaha shidaalka laga qaato ku daahaa jiro dad marka la weyse qaadanayo sometimes meelaha lugta geliyaa jiro waa laga ilbaxay waxaas dadka waa loo sheegaa waa la hadalnaa maalin walbaa la hadalnaa badanaa soksigay soo qaataan inta kale markay ka weyse qaataan soksigay mariyaan qaar waa soo weyse qaataan caagadooda biyo ku shubtaan caagada bannaankay la tagaan lugahay bannaan ku dhaqdaan ama gaarigay bannaan ku dhaqdaan
that's it. waayihii hore la cusbaa yes way jireen dad oo lugta meesha geliyo laakiin hadda dhif iyo qaliil waa wixii waa laga ilbaxa laakiin musqulaha la galayo oo la isticmaalayo musqulaha loogu jecel yahay caliyow waa musqulaha qofka muslimka uu ka soo baxo maxaa yeelay wuuba dhaqayaaba isagiyaa dhaqay meeshii shaqaalaha ay dhaqi lahaa caliyow waxaa dhaqaya qofkan muslimkaa soo dhaqay so musqul dhaqanoo la leefi karo uu ka soo baxay ninkan qof walboo ka galaya appreciation asoo appreciated ah uu galaya markaasa waxaa leedahay biyay ku daadiyaan xaanshiyooyina dhulka ku tuuraan dadka dad waalan maaha dad soo shaqo tagay waay caliyow saas ha yeelin marka iga raalahow haddii aan kugu dheeraaday personal attackna kulley waxaa filaya inaanan kugu subinin laakiin arrintii aad ka hadashay oo ahaa shilka iyo waa noocaas iyo dad juhalaa iyo wixii lamid aad ku sheegtay wax ka jira malaha dadka ka shaqeeya waa dad wax fahmaya waa dad hard workera waa dad qoysaskooda usoo shaqo tagay nolol fiican iyo xayaato fiican ku haysto marka ayaga dadka maanta ugu rooroon oo ugu gawaarida fiican oo ugu guryaha fiican oo ugu nolosha fiican ayaga waa they are the one marka camiyow aadan kuu salaamay kun iyo koo jeer karaa lahow haddii lacala ay wax iga hoos baxeen uguma talagelin adiga inaan personal attack kugu suubiyo laakiin waxaan diidayaa maadaama dee nin professional aad tahay waxaan jeclaan lahaa wararka aad soo tabinaysid inay noqdaan wax oo reliable ah wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu